السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك حر يوتيوب جانل كيغا افتر فشيال وايدين سلامي ميل كستا دنيا عليد كجوكتا waxaad ilaa soo dhawaada fadlan channelka hada ku cusubtahay subscribe noo saar like iyo share iyo commentiga intaba hanaga baqilin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaal waxa idin leeyahay soo dhawaada waa mar kale ee walaashin iftin official oo idin la isku soo noqod wanaagsan oo wacan iyo video cusub markasto idin soo hor fadhiisto waxaan jeclahay insha Allah inaan video cusub in la soo hor fadhiisto hada wixii hore iyo wixii tagatooreen kuma soo celceliyay yaa asxaabteeda qiimaha leh waxa idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan ee subscribe-kan iyo nagala baqiin walaalayaal oo u jeedin YouTube oo soo jeesta kuna xamku faraxeedaheen heer saxaaf waa la iskala goosanayo ama subscribe-ka intii nagala goosto idinkiina noo soo kabi doontiin arjeen doona insha Allah ana ka abtuugsooneen oo si jarooya haalle ilaa shartiis iyo shar kala dhinaca naga mar YouTube maalmaha oo soo waashee ilaa dhinaca naga mariyaan leena asxaabteeda qiimaha leh maanta waxaan noo wadaa video maalmahan ay baraha bulshada qabsaday hadalheen maalmahan baraha bulshada qabsatay maxay tahay hadalheentaas waaye waxa waaye dad kala tageen shalay mustaqbal lahaayeen maxaa la dhahay awlaad ka dhaxayso maxaa la dhahay shalay is calmaday maantana calafku kala geeyay iyo waqtiga iyo waayaha ma ahan macnaheeda hadii la isla joogay oo maxaa la dhahay la isguursaday in la isku maraagaa Soomaali maxay dhahday ninka lama surni lama saabsane waa laguma saas ma wakaraayo waa la suraya ma leerino waa la suraya asxaabtay sharafta badan xilli waqtiga oo dhamaadana waa la kala tagayaa taas ceeb ma ahan garoobna wax la isku caaya ma aha ceeb ma aha gabadh la yiraahdo baaro iyo samsam saa u taqaaniin ama baaro iyo wiilka la yiraahdo cadnaan waa hooyo iyo aabe labadoodaba dawlad ayaa ka dhaxaysa dad ayaa waxa u maleynayaa inay dab ka dhex shidaayaan wasoo xilliga isfureen ma dhaweyn waqti ayaa ka soo wareegatay saasay taameeysa hadli jirin iskama soo hadli jirin dad sharaf iyo edeb isku guursaday sharaf iyo edebna ku kala tagay ahaayeen dad social media warkoodu wareega ma ahayn laakiin maalmaha dambe waxa u maleysaa warkoodu inuu soo badanayo cadnaan wuu soo hadlay saale socotiin gabar kale ayaa soo hadashay maxaa la dhahayay baarana shalay ay soo hadashay ayadana ay kasoo jawaabtay baaro waa gabar iska afgaaban ma sha Allah tabarakallah intii aamusneed waa uga meel celinayna laakiin hadda inay soo hadashay xataa ma aysan ahayn inay dhagoolka jaratay ahayd laakiin hadda wayba soo hadashay way dhacday maxay ka tiraahday cadnaan arooska iyo waxaas oo dhahay iyo arrimaha ayada lagu hadal haaya arrimaheeda maxay ka dhahday waxaan rabnaa inaan isla maqalno insha Allah taala aad ila dhageysatiin bal fikirkeena iyo raay ahaanteena markaas ayaan ka hadli doonaa laakiin inta ka horeysa horta caawayada warkeeda dhuuxino dhageysan insha Allah sorry asxaabteeda ilma yar ayaga soo dhex galeen gabareeda yarta marka aan noo bilaabo videoga isla dhageyso wacan insha Allah qof wanaag kula rabo dhan ma jiro damaanta qof muslim adoo like hadaas dhaado waxaan wax kasta u goy bal wadadaas kaligaas ka qaad cid intay ku soo istaagto qodax ku dhigta ma waayeys been maaha laakiin ilaahay ma hadis waaye aqli tanaan raana ka socotid inta Soomaaliya iska shaaxaysanaysa la Soomaali xushiga mugta kale arina maalma iska socotay xoogaha soo galgalay infaanteen horta adduunkan horta qof ceeb leh ma jiro qof ceeb leh ma jiro qof maanta adiga ceebtiisa dhabta ee aad garanaysid ma jiro inta meel soo fiirsa ku xayi kartid waa may ana maanta dadaas dhoo qof soo cay inta meel soo fadhiisto wallahi waxa ku cay ma garanay waxaan ku cayo because qofkan ma qof aqoon u lahayn ma cay kariso ma waxaan ka sheegay ma walaanba waxay u keenay caydis horta gabar كوثر خير إلى سير هذا الكذا مع المال ودودي يعني أنا كسر هذا توتالي ما بريمبو because وافيري إني أنا محارك قف كان إنه صنولي جس بقف وراك توسبي مسؤولي جس وح خير لو برتم تسلم كده يسوي عايسي مركو حاس ده قف كان هذا مكسوع عيها محوك ده وح مركز يدي جستر وح عاي ماشي كما واركين because عاي ما بليبو محاولي وعايا ورد الحمد لله هو يا هاي
gabar Soomaaliyeed ahay caay ma wali wax lagu caay karo ilaa wartay maba jirto meel soo fadhiistay garabta garab goor ma caan noqotay garab sharaf leedahay garab baa inta la soo guursaday waa soo furmaan oo garab baa okay qofta waa garab waa la ogyahay nin bay soo furtay ay gabdho badan oo maanta garabana ahayn xarig soo marin laakiin gabarna ahayn garabna ahayn oo magaalada u didaan way ka sharaf badan sama maanta ani wiliga wax maan loo markin wax ligu caayo oo maanta la dhigi karo qoftan saan waa ma jiro si kasto la raadi ma jirto Soomaan ana isku waxa ahay gabadhaas meel soo fadhiisatay I know information beena loo dhiibay qofku dhiibana kulli was garanaya qof aan garanaya waayo horta dadka qoftaas oo taxaga noo dhiga labada qof markay xiriir leeyihiin ay kala tagaan horta koo mar intay macnaha reerka yihiin saddex waxa waajib ku ah qofka ninkii naagtaba okay naagta waxa looga baahan yahay marwanimo qaybta marwanimada inay soo baxdo qaybta guriga inay soo baxdo inay soo baxdo qaybta hooyanimo waa gabadha ninkan sidoo kale waa inuu ka soo baxo mas'uuliyadda uu qaado inuu ka soo baxo mas'uuliyadda guriga waa inuu ka soo baxo mas'uuliyadda aabanimo waa inuu ka soo baxo labada dhinacba in la is-respect gareeyo okay calaf imaaday wuu dhamaaday calafkii markuu dhamaaday labadan qof way kala tagay Soomaha okay adigana noloshaada raaco asagana noloshiisa raaco qof aan kala tagnabo hal sano kadib aan qofkii aan ka sheekeyna reaction ka bixina qofka nolol u sameystay amar uu tagay nolol u sameystay ani hadda nolol sameysan oo soo taaganayo meesha lugta galiyo aan si darbeen aan ka soo laabana aan galay ay soo tufayso qofkii nolosha sameystay inaad dad inta u tagta dhaado qofka saanisan waa soo caay garoob ku soo caay kan ku soo caay maxay dhadaa 6 nin oo soo guursatay ana 14 sano jira la guursaday alxamdulillah afnaana haysta ilaahay idaayo markaasan ninkan kale tasguursanaynin sidoo kale dhalinyaro la iska haddana maanta Soomaaliya taagan yahay 23 sano jira 23 sanadii waa qof weyn laakiin sida idinka ka dhigaysiin maahan garabna caay mooho ilmo la soo dhalacay mooho garab caay ma noqoto asxaabteeda been ma aha dadka bilaadanka way isguursadaan haddana way kala tagaan taasna ceeb ma aha haddaa 6 nin guursato iyo haddaa 5 nin guursataba horta calafkaaga meesha ku jiro oo ku dagi leed oo ku rezimaal ku noqon leed ilaahay subxaanahu wa ta'aala og iblaay intaas ay guursatay gabar Soomaaliyeed inay ku cayso waa laga qurux badan yahay guurkuna waa calaf deegaankuna waa calaf meesha ilaahay ku geeyo ayaad joogaysaa oo ku xasilaysaa soo asxaabteeda gabdheed yartaa waay ayaad ku xasilaysaa maxaa la dhahaayay ma ahan macnaheeda inay gabar kale ay ku cayso intaas ay soo dhashay maxaa la dhahaayay alxamdulillah qofkii ilaahay u kasto ayaa hooyo noqota alxamdulillah shukr bil caalamiin hooyanimadu waa wax qaaliya waa wax sharaf waa wax qiime garabna caay ma aha garab rasuulka abu ducay sallallahu alayhi wasallam ceeb ma aha amaan ayuu mudan yahay teeda labaad waxa ceeb iyo fool xumo oo ani ceeb iyo fool xumo oo arkaa dad inta kala tageen say hadaba ayadaba noo sheegayso walaasheen baaro inta kala tagay hal sano kadib in reaction la iska bixiyo ama la is soo qaato ama laga sheekeeyo waxyaabihii dhacay xilligay cusbaayeenba wax hadaada ka sheekeynin in laga sheekeeyo horta waaba fool xumo aan u arkaa xilligaas laakiin hadaadaba ka sheekeynin maxaa hadda uga sheekeynaysaa waqti tagay waaye wax soo noqoshaa ma lahan waxba yaa lagugu bushgareen in ka sheekeysaan yeelkan ka dhac waxaa u arkaa aniga qalad in cadnaan laga aqli badiyay wiil degan oo maskaxlan ku ogaa baarin sidoo kale gabar degan oo maskaxla ayadana ku ogahay ilaa hadda ayada ceeb ma aysan sheegin asagana ceeb ma aysan sheegin laakiin inuu sheekadan bilaabo oo dadweyne ay ka faa'iideystaan in qalad u arkaa labadoodaba waxaan leeyahay inay soo sixi doonaan waa hooyo iyo aabadad awlaad ka dhaxayso habeenna ma kala go'ayaan maalina ma kala go'ayaan dadka hadee marba awlaad ay ka dhaxayso dad nool
ka dhaxeeya amana kala go-ayaan insha allahu tacaala. kuwii kala go-aan ilaahay kama dhigaan dheheena oo sababu haddii ay kala go-ayaan awlaada dhexdooda ka bixisoo maahan kuwii kala go-aan ilaahay kama dhigaan leenahay. janalka haddaa ku cusubtahay asxaabteeda sharafta badan leh subscribe-ka hanaga baqiilnina, like iyo shareka iyo commentiga inta waa noo muhiim. waxaa idin leeyahay videoga xiga intaa ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. bye bye.